waxaynu ka soo qaadaynaa xuruuftii 14 ee qamariyada ah waxaynu ka soo qaadaynaa dayaxa 14kii xaraf ee shamsiyadana waxaynu ka soo qaadaynaa cadceeda laamu alna waxaynu ka soo qaadaynaa xidigaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وحين لقدنا درس قابا أو كساب سنسا لام التعريف أما لام ال قيبها أقيب سنتوه قابك الله أخرين أيوه بل سينتين عن 10 كأقود قلين waxaynu halkan uga ducaynaynaa walaalaheen Falastiin ku sugan magaalada Gaza in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasrigiisa siiyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala yuhuudaasi ku soo duushay in Ilaahay si degdeg u jebiyo Ilaahayna uu nasrigiisa iyo futuuxaadkiisa inaga tuso innahu ala kulli shay'in qadiir يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر صوب المحراب لام التعريف أما لام ال أين إن شاء الله تعالى لقندونا هذا بمركه الرئيسة لام التعريف أما لام ال ومحي هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء لتعريفها ويسبقها همسة الوصل مفتوحة لامتني واللام ريبا تاسيو أي عربي ديكتو مقعيد هرتودا سي مقعاسيو النقضو مقع لقرانيو وحانا كهرية همسة الوصل با كهرية لام تاسي waxa ay gashaa marka u horeysa magac ficil iyo xaraf midna ma gasho waxay gashaa magacyada magacaasi haddii ay gashana waxay ka dhigtaa mid la garanayo tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano baytun waa guri haddii aynu ashaasi gelino laamu tacriif haddii aynu gelino gurigaasi wuxuu noqonayaa guri la isla garanayo albaytu waa gurigii marka laamtaasi waa laam waxay gashaa magaca haddii ay gasho magacii waxay ka dhigtaa wax la garanayo laamtaasi waxay u qaybsantaa laba qaybood laamul qamariyah iyo laamul shamsiyah haddaba aynu u nimaadno laamul qamariyah marka hore xukunkeedu waa in la muujiyo laamta haddii ay ka dambeeyaan 14 xaraf oo higaada ah mid ka midi haddii uu ka dambeeyo laamtaasi waa la muujinayaa waxaanay noqonaysaa alqamariyah 14 xaraf waxa uu ku soo koobay sheekh Sulaymaan al-Jamzuri nadmigiisa tuhfatu al-atfaali ibqi hajjaka wa khaf aqimahu 14 xaraf beydkaasi ayay ku jiraan 14 xarafi mid ka midi haddii uu ka dambeeyo لام التعريف أما لام ال لام تاسي وقمرية حكم كيدنا وإن لام تاسي لغدا واقو أو لموتيو هذا بقى إنو سوق عدنا أفرية طبنكا حرف إيتو ساليا شودا حرف كوهرية وهمزة الأرض با البيت غين الغفور حا الحليم جيم الجبال كاف الكافرين واو الوارثين خاء الخوف فاء الفيل عين العليم قاف القدير ياء اليتيم ميم الملك ها الهدى 14 حرف mid ka mid ah haddii aad aragto oo ka dambeeya laamu tacriif waxay noqonaysaa alqamariya xukunkeeduna waa inaad muujiso albayt laamti waa inaad sukuun saarto oo aad muujiso
البيت الغفور. لام الشمسية marka laamta shamsiyada xukunkeedu wuxuu noqonayaa in la idqaamo oo laamtaasi lama akhrinayo ama dhawaaqeedu meesha ayuu ka baxayaa. iyaduna laamtaasi 14 xaraf oo xuruufta higaada ka mid ah haddii ay ka dambeeyaan laamtaasi waxay noqonaysaa laamu shamsiya. 14 xarafna سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى نظمجيس تحفة الأطفال waxa uu ku soo koobay beydkan kelmadaha ku jira xarfaha u horeeya ayaa laga qaadanayaa. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. 14 xarfa halkaasi ay ku jiraan. tusaalayaasheeduna waa sidani: ط الطيبات، ث الثواب، صاد الصالحين، را الرحمن، تاء التكاثر، ضاد الضالين، ذال الذكر، نون النار، دال الدنيا، سين السيئة، ضاء الظالمين، زاي الزكاة، شين الشمس، لام الذين. marka iyadana waxa loogu dhawaaqaya sida atta meesha waxa ka baxaya dhawaaqeedii waxaana la akhriyay xarafka dambe oo shadan. allaamu shamsiya 14 xaraf mid ka mid ah haddii uu laamta ka dambeeyo xukunkeedu waa in la idqaamo waxaanay noqonaysaa ashamsiya. haddaba waxaynu samayn doonaa isbarbardhig ashamsiya iyo alqamariya. mid waliba waxa ay la gaarka tahay. laamu alqamariya aynu soo qaadanno. marka hore waxay la gaar tahay mudharatun waa la muujinayaa oo tulfadu waana lagu dhawaaqaya iyada. laamtaasi waa laam la muujinayo oo dhawaaqeedii uu kelmadii ama magacii uu ka muuqdo. yudacu fawqaha asukuunu dusheeda waxaa la saaraa sukuun oo waxaa saaran reebitaan baa saaran. sukuun ayaa laamtaasi dusha ka saaran. xarfu aladii bacdahaa gayru mushadadin xarafka ka dambeeyaana mashadna. alqamariya intaasi ayay khaas u leedahay. laamu shamsiya iyadana aynu isla eegno. mudqamatun iyada waa la idqaamayaa oo laa tulfadu lagu dhawaaqi maayo. dhawaaqeedii meesha kama muuqdo. qodobka labaad caariyatun can itashkiil waxay ka qaawan tahay xarako oo sukuunna ma haysato. waa laam madhan oo aan waxba saarnayn. qodobka saddexaad ee laamu shamsiya u gaarkaa waxa weeyaan xarfu aladii bacdahaa mushadadun daa'iman xarafka ka dambeeya waa mid shadan weligii. yacnii al baad aragtay waxaad eegaysaa xarafka ka dambeeya mar walba waa uu shadan yahay. haddii aynu soo qaadanno tusaale gaaban oo ardaygu ku fahmi karo laamu alqamariya iyo laamu shamsiya, waxaynu ka soo qaadaynaa xuruuftii 14 ee qamariyada ah. waxaynu ka soo qaadaynaa dayaxa. 14 xaraf ee shamsiyadana waxaynu ka soo qaadaynaa cadceedda. laamu alna waxaynu ka soo qaadaynaa xidigaha. marka waxaynu leenahay markuu dayaxu joogo xidiguhuna waa ay joogaan oo waa la arkaa. sidaa awgeed 14 xaraf ee aynu sheegnay qamariyada ah haddii ay ka dambeeyaan laamtu waa ay joogaysaa oo dhawaaqeedii waa la arkayaa. haddii markaa cadceeddu joogto xidiguhu lama arko oo ma joogaan. sidaa awgeed 14 xaraf ee shamsiyada ah mid ka mid ah haddii uu ka dambeeyo laamtii way qarsoomaysaa sida aan loo arag cadceeddu marka ay joogto aan xidigaha loo arag. haddaba intaa waxaynu ku daraynaa
marka la waslinayo ashamsiyadii iyo alqamariyadii yacni marka lagu xidhayo wax ka horeeya oo la doonayo in la isla akhriyo waxaa meesha ka baxaya hamsatul wasligii ayaa meesha ka baxaya laamta ka horreeyey oo hamsatul wasligaasi aslan waxa uu u joogay meesha in lagu bilowdo laakiin haddii meesha uu yimaado in la xidhiidhinayo kelmaddan iyo tii ka horreysay laysku xidhayo hamsatul wasligaasi waa uu dhacayaa oo lama akhrinayo hal tusaale ayaynu soo qaadanaynaa aayadda fii suurati alxashri huwa allahu aladii laa ilaaha ilaa huwa almaliku alquduusu assalaamu almu'minu almuhaymin السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون waxaa halkaasi ku jira magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala allaamu tacriif baa ku jira haddaba marka aad waslinayso hamsatul wasliga ma akhrinaysid laakiin marka aad ku joogsato ee aad ka bilaabayso mid ka mida magacyada ilaahay ayaad la imanaysaa hamsatul wasligii tusaale ahaan huwa allahu aladii laa ilaaha ilaa huwa almaliku alquduus waxaan ku istaagay alquduus baan ku istaagay malikulquduus markaa hamsatul wasliga maan akhrin malikul kaaf baan ka imi waxaan u soo booday laam reeban malikulquduus waxaan rabaa inaan magaca ilaahay quduus ka bilaabo markaasaan la imanayaa hamsatul wasligii alquduusu assalaamu almu'minu almuhaymin mu'minul nuuntaasaan ka imi waxaan akhriyay laam reeban waxaanan ka booday hamsatul wasliga markaasi hamsatul wasligu wuu dhacayaa marka la xidhiidhiyo asha haddii waxa ka horeeya lagu xidhiidhiyo hamsatul wasligu meesha wuu ka dhacayaa lama akhrinayo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh